الله أكبر. halkan oo ah garoonka kubadda cagta ee Mira Awaare Garowe waxaa salaada Ciidul Adha labada ragcadood boqolaal dadweynaha kula tukaday mas'uuliin ka tirsan dawladda. mas'uuliintaasi qaar ka mid ah oo madasha ka hadlay waxaa hadaladoodii ka mid taqabbal Allahu taqabbal ilayhi minkum wa amala saalihan. waxaan ummadda muslimiinta ah iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Puntland ba ugu hambalyeynaya maalintan Ciidul Adha, maalintan barakada badan, maalintan farxadda ah, maalintan khayrka badan amaashi lala yimi maalmahan ee soonka ahaa iyo salaada maanta lagu khatimay iyo soo baxa weyn meel walba la isu soo baxay. ilaahay miduu inaga aqbalo, inoogu dambi dhaafo, raxmadiisa inoogu furo. waa maalmaha ilaahay ducooyinka aqbale. ilaahay culaysyada abaarta iyo ammaan xumida iyo cudurrada iyo dhammaan dhibaatooyinka dadka muslimiinta oo dhan haysta ilaahay inuu inaga faydo. ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Puntland dhammaan ciid mubaarak baan leenahay. kullu caam wa antum bikhayr. kaliya waxaan leenahay hal iscafiyo cafal iyo masaabax. ummaddu hay iscafido, markay iscafido oo ilaahay u toobad keenta ilaahay ajiibaya ducadooda. maanta baahi weyn baa ilaahay loo qabaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inuu cararo, ilaahay aan barino, aan iscafino. waxaynu la qabnaa dalka intiisa kale. waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo dawladdu dowrkii ay lahayd waa ay qaadatay, kumana filla, keligeed kuma ay filla. waa la socotaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo intii guddiga u ahayd abaaraha inay shir degdega ay qabteen. cid kasta bay markaa u arkayeen inay qayb ka noqon karaan in la iska kaashado arrimaha abaarahana ay la shireen. hawshina meel fiican bay u maraysaa. maanta meesha aynu marayno, nolosheenu meesha aynu marayno iyo qubayska aynu qubaysanayno iyo cunnada aynu cunayno wax sax maaha. doorkii oo dhan baa lumay, door kasta waa lumay. kii dawladda oo guddigii la qabtay sideeda horta innagu waxaa kale leenahay hay-ado caalamiya. hay-adaha caalamiga ahi inaynu isku xirro maaha. ilaahay baa caalamiga oo ina abuuray, caalami kale ma jiro. international baa laleeyahay, international kumid waxaa waxba inooma aha. waxaynu ka sugnaanay yaysan jirin. ergey gaara la qabtay baa layidhi. ergey gaara muxuu yahay? ilaahay baa ergeya, ilaahay baa wax abuuray, ilaahay aynu isku xirro. islaan ciise islaan maxamed ayaa dhaliil u jeediyey dawladda Puntland. waxa uu sidoo kale uu ka hadlay abaaraha, xaaladda dhaqaale ee Puntland, siyaasadda iyo sidoo kale amnaanka. dalku dawlad buu leeyahay. away dawladdii xagee aadday ma maqan tahay mise way joogtay? dadna madaxdaa laga dayaa, daarna albaab baa laga dayaa. hoggaankii dalku mee ma maqan yihiin? waqay yimaadeene ma joogaan? waqay kaceene ma aamusan yihiin? waqay hadleene ma jiifaan? waqay kaceen. weelguntu kaaskuma hoggaanka dalka dawladda ah waxaan lahayn iyo hala hoose midna lama haabto. iyadaa la rabaa dalka inay hoggaamiso. intaasi kadib qaar ka mid ah dadweynihii halkan salaada ciidda ku tukaday ayaan dareenkooda weydiinay ciidan iyo weliba ciidaha kale waxay uga duwan tahay. ciid mubaarak, ciid mubaarak. magacaygu waa Cabdullaahi Liibaan. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan ugu hambalyeynayo 10kii maalmood oo khayrka badnaa iyo maalintii Carafo aan soo soonnay. hambalyo. sidoo kale waxaa garbahayga taagan walaalahay oo ayaguna ciidda iyo igala qayb qaadanaya. waan salaaminaa ummadda islaamka, waan ugu hambalyeynaynaa. ciidda waxay iga duwan tahay garowe kumaaliyiin. alxamdulilah ma habeen horaan Hargeysa ka yimi. caasimaddiina ku iida sharaf bay tahay, farxad bay tahay, deegaan ka diisan maadaama saddex sano ka maqnaa caasimaddeedii. waxaan leeyahay dhammaan asxaabteydii reer Hargeysana waa salaamaya. ugu horreeya Maxamed Abuukar iyo asxaabteydii kale dhammaantood waa salaamaya iyagana. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. Cabdullaahi Cabdiraxmaan ku magac dheer Cabdullaahi Xaaji. waxaan ku ciidnay caasimadda Puntland ee Garowe, gaar ahaan garoonka weyn ee Mira Awaare. ilaahay baa noo suurtageliyey inaan ciidno. dad baana maanta farxad qaadan soona gaarin. taas waa mahad ilaahay mar koowaad. dalka hadduu alla kuu soo mogol yahay abaaro baahsan baa ka jira iyo sixir barar. ilaahay waxaa uga baryanaa ummadda Soomaaliyeed inuu ka dulqaado. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr. ilaahay bisheeda hanuu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash iyo dalka iyo dadka oo barwaaqo ku jira. ilaahay abaar daran baa jirta. ilaahay abaartana ka dulqaado.
تقبل الله منا ومنكم بصالح الأعمال عيد مبارك dhammaan waxaan tahniyad iyo hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr xasan haykal universal TV garowe